wuuna dhaariya kow inuusan ogeyn kana qayb qaadan nooc kasta oo ay tahay afduubkii marxuumad caasho ilyaas aadan oo 13 jireed. labo inuusan ka qayb qaadan kufsiga iyo dilka loo geysta marxuuma caasho ilyaas aadan xataa uusan taaban jirkeeda. inuusan wax ka ogeyn dacaya dareenba afduubka qarinta dilka kufsiga iyo loo geysashada marxuumad caasho ilyaas aadan. intii hore saanidi caaisha maxamed caaisho inaadan kufsan taaban dilin wax dhiba u geysan ma ku wallaahi billaahi tallaahi ba waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi eedeysanaha toddobaad farxaan maxamed axmed caaisho inaadan kufsan dilin taaban afduubin wax dhiba u geysan ma ku wallaahi billaahi tallaahi ba waa igu wallaahi waa igu billaahi waa igu tallaahi ilmahaygiiba cashan ehelkayga ka mid tahay sidaasaan uga duwan. eedeysanaha sideedaad cabdinasiib cali cumar sidoo kale puntland ee soomaaliya ujeedo xukuumadda maxkamadeed maanta oo taariikhdu ay tahay 12 bishii shanaad 2019 maxkamadda darajada koowaad gobolka nugaal garoowe waxay u fariisatay xugumna ka soo saartay dacwadii ciqaabta ahayd oo loo haystay 10 nin oo ay ka mid yihiin cabdifataax cabdiraxmaan warsame cabdishakuur maxamed degel cabdisalaan cabdiraxmaan warsame ilaa lambarka 10aad. maxkamaddu markay dhegaysatay eedda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen caasho marxuumad caasho ilyaas aadan nimankaasu inay afduubeen kufsadeen si wadareed ah dileen sumcadilid puntland iyo shacabkeeda ku sameeyeen amnigeeda khalkhal geliyeen markay xeeraalintiisaa eedda kusoo gudbisay maxkamaddu markay dhegaysatay eedaysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin maxkamaddu markay dhegaysatay qareennada maxkamaddu markay dhegaysatay dhegaysiga koowaad iyo dhegaysiga labaad iyo dhegaysigii saddexaad oo hadda gabagabadiina uu ku soo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa maxamed xareed taargid dacwada koowaad uu kaga dhigay 3 eedaysane oo kale ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed degel iyo cabdisalaan cabdiraxmaan warsame. 3daa uu yidhi uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo ciddiyihii gabadha dhacaankeedii iyo ciddiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo la soo baaray nairobi lagu soo baaray cadaymihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen 7 kale laakiin uusan keenin eeddiisana uu ku ururiyey maadaana wax caddaymaa u hayn in la dhaariyo. maxkamadduna ay dhaarisay. maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4aad ilaa lambarka 10aad xorriyaddooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan. 3 kale oo uu ku soo gabagabeeyey maadaa ay caddayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibtaa u geystay ay yihiin markaanu qoraallada akhrinayna ay saa muujinayso inay yihiin 3daasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey dhibtaa ee caasho ku sameeyey inay yihiin maadaa ciddiyihii iyo taabashadii waxaa la yidhaahdo dhacaankii laga helay xukunkii maxkamadda. maxkamaddu waxay ku xukuntay 3daas eedaysane oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed degel iyo
cabdisalaan cabdiraxmaan warsame dil toogasho ah oo dawladdu ay ku samaynayso dilkaas ay u xil saaran tahay iyadu inay fuliso wabilaahi tawfiiq fariista waxaanu la socodsiinaynaa racfaan baa ka furan dil ah marka waxaanu la socodsiinaynaa dadka ma garanaysaa cuskiga waa la socodsiinaya waxaa loo cuskaday qaraa-in cad qaraa-in marka la yidhaahdo yuraadu bilqaraa'in alamaaraat يراد بالقرائن الأمارات والعلامات التي يستدل بها على وجود شيء أو نفيه كما لو شوهد شخص يخرج من دار مذعورا وبيده سكين ملطخة بالدماء وعند دخول الناس دار وجدوا شخصا مذبوحا فيستدلون بما رأوه من حال الشخص الخارج من الدار على أنه هو القاتل الذي باشر القتل بنفسه مع أنهم لم يشاهدوا ذلك أو يوجد المتاع المسروق في بيت شخص فيستدل بذلك على أن هذا الشخص هو سارق أو أن سارق أودعه إياه أو أن صاحب البيت اشتراه من السارق انت مركان كسو بحنا من السنة قرائنك وحالي فهل تعتبر القرائن طريقا من طريق القضاء ووسيلة من وسائل النفي والإثبات عند صدور الأحكام بحيث يصح للقاضي أن يأخذ بها ويجعلها مستندا لحكمه؟ نعم، أن شرع الإسلام اعتبر القرائن ولم يهدرها ما ترتريو قرائن الشرع إسلامك وحكدغيا وحلق بسنكره oo masalada daliil looga dhigi karo waxaana u daliila waqad dalla calaa ictibaari alqaraa'in alkitaab wasunna wa aqwaalu salafi saalix min fuqahaa'i wa qudaati awalan adilatu alqur'aan alkariim calaa ictibaari alqaraa'in wajaa'u calaa qamiisii bidamin kadib qaala bal sawarat lakum anfusukum markay shaarka keeneen xaqiiqada ilaahay waa ka warramay dhiig beenah buu yidhi aabbahoodna wuxuu yidhi yacquub bal sawalat lakum anfusukum markaa isagoo halkaa muujay in naftoodu waxa kan u qurxisay ee wax jira uusan ahayn waxay culimmadu waajmacuu calaa ana yacquub calayhi الsalaam istadalla calaa kidibihim bimaa ra'aahu min salaamati alqamiisi wa cadami tamasuqih wuxuu halkaas u daliishaday inaysan xaqiiqada si waafaqsan sheegayn markuu arkay shaatigii inuu nabad galay oo wax jeexjeexa uusan lahayn xataa ruwiya annahu qaala lahum ilaa laga sheegay inuu iyagu ku yidhi maandhayaalow mataa kaana dibu xakiiman ya'kulu yuusuf walaa yakhaqul khamiis isagiina waa cunay ma garanaysaa maradiina ma jeexjeexin marka waxay kutusaysaa qaraa-inta rismiga ah markaan hadda soo qaadno oo sii wadno sida ma garanaysaa aan hadda waxaa la yidhaahdo abyaqaanka oo calaamad ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sugay wa min asunna annabawiya anna rasuula sala allahu alayh wasalam xakama biqowli qaafa wuxuu xukumay ninkii sinjiyaqaanka ama si abyaqaanka ahaa markuu yidhi qofka kale qofkaas way sog yihiin waa dhalay sidaasuu ku xukumay waxaa ka mid ah ثالثا من أقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دون نكير من حد بإقامة الزنا عيد كظهر تمنى مجرته نبي عليه السلام وحي الحق مع عمر وعلى قرنية على امرأة ظهر حملها ولا زوج لها هوين أور له وأمن لها ذو حبك كؤبي على قرينة ظاهرته أور كاس بانه muujay inay sinaysatay waxaa kaloo jira iyadana cumar iyo ibnu mascuud radiallahu tacaala canhuma biwujuubi xaddi biraa'ixati alkhamri khamri ee maganaysaayey ka soo uray fii fami rajuli min afkii owqay khamran cala alqariinati daahirati iyagoo u cuskaday qariinada daahirkaa
sidaa waxaanu la socodsiinaynaa qareenadaas toddobada kale ka bari yeeshay oo saddexda la soo baxday xeelaalintu keeneen inay maxkamaddu u aragtay wax xaqa waafaqsan inay tahay oo xukunka u cuskatay waxa weeye waxaa la yidhaahdaa bayino likulli maa yubayinu alxaqa wayadharuhu ma aha markhaanti iyo dhaar iyo qiraal keliya bayinadu ma aha waa la socodsiinaynaa dadka qofkii aan ma garanaysaa falbayinatu qad takunu shahaadatan maqbuula aw takuna nakuulan aw takunu shaahid alxaal xaalada meesha taal qiimaynteeda iyo nukuulka qofku waxay noqonayaan iyaguna bayinay noqonayaan fa ina min ashuhuudi min albayina walqariinatu min albayina markhaantiga iyo qariinadu bayinaadkay ka mid yihiin cad waqad takunu alqariinatu fii bacdi almawaadici aqwaa dalaalatan في صدق المدعي في دعواه من دلالة الشاهدين مرارك قيبتوت قرينه ويكحوك بدنتهي شاهدا أنك وكذا وكان أيضا فقهاء أخذ الفقهاء بالقرينة واعتبروها وسيلة من وسائل إثبات وطريقا من طرق الحكم فقهاء ويقاتين وحين هل كاكم عليا أو قاتين oo ictibaareen wasiilo waxa lagu gaaro inay tahay waxa sugnaada oo xukunka lagu gaaro sidaas markabaan idin la socodsiinaynaa xukunkana waa ku qoraynaa maxkamaduna saasay ku xiran tahay wabillahi tawfiiq